بسم الله وبه نستعين أمور الدنيا والدين caawa waxaan ka hadli doonaa waxa loo yaqaano labada exam ee la dhaho MRCB-ga iyo MRCB Ireland-ka marka ka UK-ga la dhaho horaan uga hadlay laakiin waxaan doonayaa inaan MRCB Ireland aan waxoogaa ka sheekeeyo siduu waxa weeye sida loo galo iyo meesha laga akhriyo marka waxaan samayn doonaa marka isbarbardhig anigoo diiradda saari doona ama dul istaagi doona MRCB Ireland marka labada exam horta waa laba exam oo isku mid ah oo wax badan ku kala duwanay oo waxaan naqaanaa MRCB UK-gu qofka marka uu dhameeyo waxa uu qaadanayaa liisanka ama registrationka UK ayaa uu qaadanaya ee loo yaqaano marka GMC ee loo soo gaabiyo marka GMC ama General Medical Council-ka okay exam kan kale loo yaqaano MRCB Ireland isaga laftirkiisu waxa weeyaan waxa uu qofka siinaya inuu liisanka ka qaato marka ilaa 30 minute baan waxaan samayn doonaa ayaan sharaxaad yar kooban samayn doonaa markaan dhameeyo kadib ay su'aal isweydiin doonaa haduu la yiraahdo okay haddaba labada exam waxaan dhahay waa isku mid waa labadaba liisanka waa lagu qaadanayaa laakiin labada maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin number 1 ninka loo yaqaano MRCB Ireland waa uu ka dib yar yahay ama ka jilicsan yahay ka UK-ga okay oo xagga preparationka uu ka dib yar yahay isla markaana marka laga hadlayo baasitaankana waa uu ka chance fiican yahay marka loo eego ka UK okay xagga waqtiga diyaarintana waa uu ka koobnaanayaa ka Ireland ka UK sabab dhowra dartood waa sababta ugu muhiimsan ee aan u leeyahay waa uu ka muddo kooban yahay waxa weeyaan labaduba waxay leeyihiin part 1 part 2 iyo qayb saddexaad oo la dhaho marka clinical marka ninka UK-ga mushkiladiisu waxa weeyaan clinicalka ayaa waxa uu adag yahay si aad u hesho seedka clinicalka waxa weeye waqti badan baa kaaga baxaya waqti badan ayaa kaaga baxaya oo sanadkii waxa la galaa 2 jeer ayaa markaa la galaa okay labada jeerna waxa la qaadanaya markaa sidii loo kala imtixaanka loo kala horeeyay oo tusaalahan qofka iminka dhameeyay examka 2023ka iyo qofka imtixaanka dhameeyay 2018ka waxa seedka helaya ka 18ka helaya okay laakiin ninka Ireland isagu waxa weeyaan sanadka waxa la galaa 12 jeer waxa la galaa sanadka December baa la gelin sanadka 12 jeer ayaa la galaa marka saas uga chance fiicnaanaya marka number 1 waxa uu niri waa uu ka dib yar yahay ratekiisa bas ratekiisu ka fiican yahay isla markaana durationkiisu waa ka kooban yahay okay markaan leeyahay waa uu ka dib yar yahay waana uu ka rate fiican yahay xagga baasida maxaa dariishadaya iminka haddaad u fiirsato kani waxa weeyaan waa MRCB Ireland 2023 marka anu waxaan ka hadlayaa internal medicine ka hadlayaa laakiin waxa kaloo leeyahay surgery waxa kaloo leeyahay obsageni okay waxa kaloo leeyahay pediatry waxa kaloo leeyahay public health ayaa uu leeyahay inta ka warqabo marka qofka waxa weeyaan baaskiisu waa 50% waxa weeyaan way internal medicine wuxuu ku jiraa kuwa ugu adag buu ku jiraa waxaad ka warantaa waxaan ku tusayaa examkaas intuu jilicsan okay balay pediatry-ga waa 2023ka qofka pediatry-ga bas rate-kiisu wuxuu ahaa 96 buu ahaa yani haddii ay 100 qof galaan 100ka qof waxa baasaya 69 ayaa baasay sanadkii 2000 waxa weeyaa 23ka afar keliyata ayaa waayay okay marka saas u kala baalku u kala duwan yahay
وتخصص كلا لما مدها وهو أدق سيقوم مقالة internal medicine كا هو أدق أوكي هدينو أجنو أوبس جينيجا بقول كل إحنا أي بس ريكيسوها أوكي marka examkaasi waxaanu yiri saddex shay ku kala duwan yihiin number 1 preparation kiyo kooban sababta preparation uga dhib yaraanayo halka daba ku sheegaya bas reedkiyo fiican waqtigo marka kooban oo qofkii saddexda exam muddo kooban ayuu kaga baxi karaya okay haddaba sida loo diyaarinayo oo ah marka sababta aynu caawa aynu waxa weeyaan meeting u sameynayno horta marka laga hadlayo Ireland examku waa internal medicine marka waa general internal medicine ayaa noqonaya oo waa sideedii course waaweynaa iyo courseyaadka yar yar sida dermatology-ga ophthalmology-ga component-ka xagga wax ka hadlaya examka MRCB Ireland ku wuxuu ka sameeyay saddex qaybood waa part 1 part 2 iyo qayb waxa weeyaan clinical iyo qayb clinical weeyaan okay part 1 ka waxa uu ka sameeyay yahay ama qofku ku galaya 100 su'aalood 100 ka su'aalood waxa uu kaga jawaabayaa 3 saacadood 100 ka su'aalood waxa weeyaan marka waa MCQ weeyaan marka waxa weeyaan MCQ gaasi marka UK laga hadlayo iyo ka Ireland waxaan moodaa inuu farqi u dhaxeeyo فرق ugu dhaxeeyo waxa weeyaan ka UK-ga waxa shanta su'aalood A B C D sida caadiga ah gobogaleeda naqaano shanta su'aalood shanta gobogaleeda la dooranayo waxa weeyaan sidaad ku kala saarto way adag waa best 5 caadiya waxa weeyaan aad isku weeyii afartaasiba adigoo aan kala saarin ama waxa weeyaan laba kala saari la ayaa laga yaabaa inuu waxa weeye aad go'aan ku dambe qaadato laakiin ka Ireland isagu waxaan moodaa inaanu isku dhaweyn ayaad moodaa oo markaa ahayn best answer marka maadaama isku dhaweyn oo su'aaluhu afarta su'aalood ay saddex qalad yihiin oo waxa weeyaan aad sheeda ka arkayso midna sax yahay taas waxa keenaysa markaa inuu ka jilicsanaado ayay keenaysaa halka su'aalaha dhararkoodu waa isku mid su'aalu aad uma dhaadheera waxa weeyaan waa meel dhaxaad inkastoo ay ku jiraan midmid aad u gaaban iyo midmid aad u dheer ay ku jirto laakiin average ahaan waxa weeyaan waa su'aalo meel dhaxaad ah oo aan xagga dhararka aan waxa weeyaan lagu tirinayn taas maxay faa'iido leedahay waxay faa'iido leedahay waqtiga kaama cunayo oo labada examba waqtiga lagu siinaya waa ku filan yahay okay part 1 ka waxa weeyaan imsa jeer baa la galaa waxa la galaa sanadkii 3 jeer baa la galaa waxa la galaa January April iyo Augusto ayaa la galaa okay centerka xagee lagu gelayaa waxa lagu gelayaa waa online exam weeyaan yani waxa weeyaan uma baahnid inaad safarto ama safar gashid adigoo meeshaada jooga adigoo gurigaaga jooga adoo qolkaaga jooga ayaad waxaad sameynaysaa ayaad examka galaysaa marka part 1 ka part 2 ga waa online weeyaan okay part 3 ga isagu maadaama yahay oski yahay isaga waa inaad markaa centerkiisa aad tagto UK gu isagu ma leeyahay online male isagu online male sanadkii dhow tolay waxay soo saareen computer based ka dhigay yani computer baad ku galaysaa laakiin waa inaad joogto centeriska examka lagu galo waa inaad joogto okay marka ka UK inaga meesha inuu dhow waxa weeyaan waa Kenya waxa kale lagu galaa Egypt meelaha kale lagu galo waxa kamid ah Dubai ba kamid ah Malaysia kamid ah okay waxa kale kamid ah marka India oo meelo kala duwan lagu galo okay kan kale Ireland maxaa niri isagu waa online weeyaan okay haddaba goormuu qofku eligible u yahay
eligible waxaad u tahay marka airline laga hadlayo markaad aad jaamacadda dhamayso qalinjibintaada 6 bilood kadib qalinjibintaada 6 bilood kadib yani adigoo internshipkii aanad dhamayn ayaa waxaad geli karaysaa MRCB Airlines laakiin MRCB UK isaga waa inaad 1 year dhamayso yani waa inaad internshipka aad dhamayso weeyaan okay marka eligibility-ga Airline isaga waxa lagu helaa ama qofku eligible u noqonayaa the first 6 months after graduation okay haddaba qofku marka uu galo examka part 1ka uu ku baasi waayo imiska isku dayo ayaa qofka loo ogoliyay waxa loo ogoliyay 6 jeer ya okay 6 jeer ayaa marka loo ogoliyay okay marka aad ka koowaad gashid ka labaad waa inaad intee ku gasho waa inaad 6 sano gudood ku gasho ka labaad sanaanu kii koowaad baan ayaa bishii doctor helahayd ka labaad waa inaad 6 sano gudahood aan ku galo haddii kale wiigo expire garoobaya ka labaad markaad gashid ka saddexaad waa inaad ku gasho 3 sano gudihiisa okay kaas waa Ireland waxaad ka warantaa UK waa isku mid oo mid walba waxa uu leeyahay 6 isku day 6 isku day ayaa uu leeyahay laakiin isagu wuxuu xisaabiyaa markaad ka koowaad gashid part 1ka markaad gashid waa inaad markaa part 2ga iyo 3gaba aad 7 sano gudahood aad ku dhamaysid markaan galay ka koowaad tusaale ahaan 2000 aan galay waa inaad 2027ka 3 dhameeyaa haddii kale uu ka isbargaroobaya dib aad ka soo bilaabaysaa laakiin labadii dhowr bilood ka hor ayaa waxay soo saareen inay 7 years limit-ka ay joojiyeen 7 years limit-ka waa ay joojiyeen oo waxa weeyaan waayo COVID-kiiba ayaa oskigii joojiyey deena dadkii aad isku soo gaadheen deena cities-ku ku filnaan waayeen taas waxay keentay markaa in 7 years banka laga saaro oo markaa laga dhigo markaa si furan laga dhigo okay jaamacaddii waan dhameeyey 6 bilood baa ka soo wareegay waxa loo yaqaano qalinjibinteedii maxaa laga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay in shahaadadaada aad attest ka dhigto aad ka dhigto certified proofing ka ayaa kaaga dhigi karaya yaa ku tasdiiqinaya waxay noqon karaysaa Irish Police Force booliska Irish wuxuu noqon karayaa jaamacadaadii oo wax kale ma aha waa shahaadadii ayaa copy laga qaadaya marka copy laga qaado waxa lagu qorayaa inay shahaadadani ay tahay shahaado original kadib markii la eegay shuruudaha shahaadooyinka marka hadalka sida u taalo insha Allah qofku u baahan waxa weeyaan waan u soo diri doonaa okay yaa ku sameynaya waxa ku sameynaya notary waxa ku sameyn karaya lawyer ya ana waxa ka sameystay notaayo caadi ah ay sameysay nin baa u tagay maxaamil lawyer haysta waxa weeyaan notary haysta kabacdi isaga ay sameeyay waa wax dhib yar la sameyn karayo ama British consulka ama Irish consulka ama safaaradda okay marka shahaadadaada waa in marka certified laga dhigaa waxaana ka dhigaya meelaha aynu xusnay okay haddaba examka formatkiisu siduu noqonaya examka waxaanu nidhi waa 100 su'aalood 100% waxa weeyaan waa clinical muxuu noqonayaa yani waxa lagu weydiinaya investigation ka lagu weydiinaya waxa lagu weydiinaya management ka lagu weydiinaya waxa lagu weydiinaya diagnosis-ka
ayaa markaa lagu weydiinaya markaa dhammaantood waa wada MCQs weeyaan waxa soo haray 25 baa soo haray soo maha 25kaas wuxuu noqonayaa clinical science buu noqonayaa clinical science ayaa uu noqonaya marka anatomy physiology biochemistry genetic marka laakiin anatomy maaha anatomy qayaxan oo meel taagan maaha waa anatomy clinical la xiriira tusaalahaan oo kale qof ba waxa lagu oranayaa waxa ku dhacay inferior MI buu leeyahay coronary artery xidhan waa kee marka waa raad coronary artery atraada marka saasoo kale lagu weydiinaya saasoo kale ayaa lagu weydiinayaa waa su'aal anatomy laakiin clinically faa'iido leh oo clinically waxa weeye qofka wax taraysa taas waa marka clinical science loo yiri okay marka clinical science ku inta ka badnaan karayaan laakiin inta sagu miisa anatomy-ga physiology-ga biochemistry-ga iyo genetics-ka okay kaas waa ka Ireland ka UK isaguna waa sida laakiin su'aalihiisu waa 200 su'aalihiisu waa 200 okay waa 100 3 saacadood lagu siinayo iyo 100 kale 3 saacadood lagu siinayo iyo 2 saacadood oo markaa gaaba oo dhextaal u ah marka labada 100 gooni looma saxayo waa la isku darayaa ka bacdi markaa sidaas ay isku geyntu noqonaysaa okay marka aynu ka Ireland hadaba wuxuu ka sameeyay ka Ireland hortaan ku horeeyo ka UK wuxuu ku wanaagsan yahay exactly system walba inta su'aalood ee kaaga imanaya ayaad garanaysaa waxaan niri waa 200 su'aalood soomaha 8 system waaweyn clinical cardiology endocrine GIT waxa weeyaan neurology renal respiratory rheumatology hematology-ga isagu 10 intaas waxa ku imanaya 16 bay ku imanaya okay waxa kaloo jirta marka inta basic-ga pharmacology-ga oo 15 clinical science-ka isaguna waxa weeye 5 ah marka waxa la dhahaa exam-ka MRCB UK part 1 qofka labadaas wanaagsan u baasa waa pharmacology-ga iyo clinical science-ka oo waxa weeyaan labadoodu imsa isku yihiin waa 40 bay isku yihiin iyo system kale aad u adag oo qofku hadduu wax fiican ka keeno exam-kaas si xaraga loo baasayo waa ninka la dhaho neurology okay kana 14 baa haysataa intaasi waxa weeyaan waa 4 yani exam-kii waa 4 meelood oo 1 meelood weeyaan qofka isagu si wanaagsan u baasa 3 meelood exam-ka si wanaagsan oo xaraga leh ayaa u baasaya okay marka ninka la dhaho waxa jira iyaguna qaar yariisa waa palliative-ka waa oncology-ga waa waxa weeyaan medical ophthalmology-ga okay way yar yihiin oo 5 meelahaas weeyaan waxa jira qaar iyagu meel dhaxaada oo aad ka maarmin diyaarintooda waa psychiatry-ga waa dermatology-ga okay labadaasina waxa weeyaan waa 9 iyo 8 marka waxaad u baahan tahay psychiatry iyo ophthalmology-ga isla tigis waa sabab diyaarinaysa waxa yimid ninka loo yaqaano Ireland isaga exactly numbers ba sheegayo oo kuma oranayo sida UK 14 su'aalood ba cardiology ku imanaya laakiin ta wuxuu ku leeyahay 5 su'aalood ilaa 15 su'aalood inta u dhaxeeya ayaa ku imanaya okay marka component-ka la diyaarinayo waa isku mid horta basic science-ka waa isku mid oo waxa weeyaan inta badan basic science-ka saameyn badan ma leh marka laga hadlayo MRCB Ireland basic science-kiisu waa more clinical waxa weeyaan 3 su'aalood oo ahaa biostatic ma ahine iyo 2 anatomy ahaa
ما هنا wax basis aynisa kumaan arag examkii waxa weeyaan April okay marka qofkii wuxuu uu kala degayaa ama kala maqnaanaya culays uu kala maqnaanaya culays ayaa kala maqnaanaya oo baserisku saameyn badan ma laha taas wata waxa kaloo isaguna saameyn badan lahayn waxa loo yaqaano psychiatriga iyo ophthalmologyga psychiatry iyo ophthalmology la isku geeyay examka dhan waxay ka yihiin 3 su'aalood ay ka yihiin marka saddexda su'aaloodna waa qaar xiriir aad la leh waxa weeyaan internal medicine-ka isaguna waxa weeyaan saameyn badan ma laha isaguna culays buu kala maqay laakiin marka laga hadlayo UK waxa weeyaan waa inaad psychiatriga si wanaagsan u diyaariso ophthalmologyga si wanaagsan u diyaariso baseriska waqti fiican aad siiso waxa laga yaabaa in marka buug akhriyayso ilaa intaasi inay noqdaan ilaa 500 600 oo page marka buugta waa inaad ka akhriyayso okay marka that's why marka loo leeyahay UK MRCB UK waa ka jilicsan yahay MRCB Ireland waa ka jilicsan okay marka haddaan aan iraado aan luqad la fahmayo aan ku sawiro waxaan oran karayaa waa farqiga u dhaxeeya examka form 4ka iyo examka form 2 oo kale yani intaas isku jiraan aniga aragti ahaanteeda ya waxa weeye maalinta ka soo baxay Bartuanka UK iyo Ireland waa farqi weyn ba dareemay farqi aad u weyn ayaa markaa dareemay okay marka intaas ugu muhiimsan waxyaabo la iska qaadaya waa maxay intaas ayaa markaa la iska qaadaya marka Bartuga haddaan u imaado Ireland isaguna waxa weeyaan markan waa laba bart oo mid kale yahay 7 iyo 7 mid kale yahay marka 2.5 hour iyo marka 2.5 hour oo 2 saacadood oo marka dhextaala ku jiro marka isaguna waa online yani guriga ku diyaarinaysa ku gelaysa examka hadda waxyaabaha cajaa'ibka ah aan ku arkay examka waxa kamid ah qofku wuxuu awood u leeyahay inuu raado waxa weeye toiletka soo isticmaalaya marka iska bixi karayo usuuliye gali karayo okay marka maxaan niri waa 150 laakiin maxaa muhiim ah in ogaano waa la isku saxaya yani mid walba ma aha qasab inaad gooni soo baasto waxa weeye labada exam la isku geenaya oo waa la isku saxaya okay Bartuga ayaa waxaan moodaa inuu ka yara nidaamsan yahay xagga examiska meeluu ka imanayo oo mid walba si toos ah lagu sheegaya sideedda subject ee waaweyn waa cardiologyga endocrineka GIT-ga immunologyga hematologyga infectioska iyo urinary-ga neuroha iyo ophthalmology psychiatry la soo raaciyay markan nephrologyga respiratory-ga rheumatology-ga intaasi waxa weeye waa 10 waxa soo haray dermatology oo shana okay infectionsku markan wuxuu noqonayaa 5 buu noqonayaa toxicology-na markan wuxuu noqonayaa 5 ayaa uu noqonayaa marka sideedda system ayaa si wanaagsan aad iskaga qabanaysaa sideedda system ayaa si wanaagsan aad iskaga qabanaysaa okay ninka la dhaho UK isagu markan waa 100 okay markan part 2ga aad buu adigi part 2gu aad ayuu adigi oo waxa lagu weydiinayaa tusaale ahaan oo kale haddaan isbarbar dhigo part 1ka iyo part 2ga waxa lagu leeyahay qofba wuxuu isticmaalay antibiotic buu isticmaalay markuu antibiotic muddo isticmaalayay wuxuu diyaar u yeeshay
okay marka maxay noqonaysaa maxaa keenay marka maxay noqonaysaa jawaabtu waxay noqonaysaa waa pseudomembranous colitis weeyaan pseudomembranous colitis okay taasoo dooranaysaa kaasi waa part 1kii oo maxaa la imtixaamayaa inaan garanayo in qof markuu antibiotic qaato uu yeelanayo pseudomembranous colitis uu yeelanayo okay laakiin part 2 waxa la weydiinayaa qof baa antibiotic qaatay diyaar u yeeshay deedna waa la baadhay deetana waxa la ogaaday in pseudomembranous colitis uu yeeshay qofkii shabaadhaha loo sameeyey shabaadhadiisu waxa weeye CBC kriyaadkii waxa soo baxay waxa loo sameeyey image baa loo sameeyey image wuxuu soo baxay inuu kolonkiisu yahay 12 kale marka management nooc ma loo sameeyaa okay marka maxaa lagu sii weydiinayaa specific treatment-ka loo sameeyo qofka waa part 2ga part 1kana waxa lagu weydiinayaa create diagnosis-ka marka maadaama sheeko badan halka ku jirto waxa dhacaya in uu markaa uu aad scenario-du ay aad u dheeraato marka waqtiga 3 saacadoodii waxa weeye kuma filna oo part 2ga trigiis waxa weeyaan scenario-da aad u dheer qofku waxa uu baahan yahay inuu practice badan sameeyo oo markaa su'aalo badan oo markaa uu ka shaqeeyo okay part 2ga isagana waa 3 jeer baa la galaa waa March waa July waa October waxa jirta hadaba qodobka soo muhiim in dadayowga qaar examka MRCB Ireland-ka laga cafinayo oo markaa aanay qasab ahayn inay galaan waxaa ka mid ah qofka 3 su'aalood 3 part ee UK-ga sitaa uma baahna part 1 inuu galo kaliya wuxuu galayaa waxa uu galayaa part 2ga ayuu ka bilaabaya markaa okay bal waxaad ka warantaa haddaan haysto 3 Ireland haddaan haysto MRCB UK kiisa koowaad ma laga deenayaa lagama deenayo marka dhammaantood waxyaabo kuwaas ku qoran waxa weeye qofka haysta waa laga deenayaa waxa ka mid ah marka MRCB pathology MRCB CH waxa kaloo ka mid ah MRCB psychiatry-ga waxa kaloo ka mid ah Arab boardka internal medicine-ka iyo pediatric qofka haysta waa laga deenayaa koowaad Saudi board qofka haysta waa laga deenayaa Kuwait board Oman board waa laga deenayaa waxa kaloo jirta qofka isagu yani marka qodobkaas ayaa aad u xoojinaynaa haddaad haysato MRCB UK part 1 wax macnaa soo kordhinaysa ma jirto oo marka aad 3daba haysato ayay macna soo kordhinaysa okay kharashaadka lagu galo part 1 waxa lagu galaa 710 pound part 2ga la mid part 3ga waxa lagu galaa 360 pound ayaa lagu galaa okay UK-ga isaga waxa lagu galaa 616 businesska waxa lagu galaa 1273 marka mar walba waxa qaaliya Ireland-ka ayaa marka qaaliya okay part 3ga formaatkiisu waa 2 long case iyo 5 short case okay marka examka hadaba sida loo diyaariyaa qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan examka sida loo diyaariyaa qofka waqti teleg ba ku filan qofka waqtiga ku filan waxyaabo badan baa saameynaya waxa saameynaya qofka isaga basekiisa qofkiisa aduu qof imika soo baxay jaacadii soo dhameeyay oo theory-gu ka sii qoyan yahay iyo qof 20 sano ka hor graduation-kiisa ugu dambeysay farqi baa u dhaxeynaya okay qodob labaad ee saameynaya waxa weeyaan qofka haleelkiisa qof isagu haleel fiican haya iyo qof isagu aan haleel bahin isku diyaarin ma noqonayso laakiin average ahaan waxa ku filan 4 bilood ilaa iyo 6 bilood examkaas waa exam aad u dhib yar uma baahna markaa waqti aad u dheer uma baahna
marka maxaan nidhi 4 bilood ilaa 6 bilood. Okay, haddaba saa loo diyaarinaya diyaarintiisu waxaa ka mid ah qofka waxa asaasiya inuu qofku online MCQs uu sameeyo iyo buugta laga akhriyo in markaa ka akhriyo. waxaa xagga xasuusin mudan labada exam waa same preparation. labada exam waa same preparation. Okay, oo buugtu waa isku mid. Okay, waxaa kaloo isku mid ah MCQsyada laga shaqeeyaa iyaguna waa isku mid. waxa leeyahay ku kala duwan ma jirto. Okay, xataa waxaa jira fiidiyooyo la daawado. fiidiyooyadaasi koorasaadka waa isku mid oo qofka kooraska MRCB iyo MRCB Ireland koorasidoodu waa isku mid mid ka duwan ma jirto. Okay, marka waxaa jira koorasyo badan baa jira oo bixiyaan Hindidu bixiso. waxaa jira qaar Masaaridu bixiso, Bangladeshku qaar bixiyaan. aad buu u tiro badan yahay. Okay, laakiin waxaan eegaynaa buugta la akhriyo iyo online MCQska laga shaqeeyo. haddii aad doonayso inaad diyaariso MRCB UK, haddaad doonayso inaad diyaariso MRCB UK, waxa weeyaan question bank ugu wanaagsan waa ninka loo yaqaano Bass Medicine. laakiin haddaad doonayso inaad diyaariso Ireland, question bank ugu wanaagsan waa ninka loo yaqaano on examination. Okay, on examination ayaa markaa ugu wanaagsan. Okay, laakiin waxa ka sii qurux badan qofkii labadaas ku daro. marka diyaarinayso Ireland, marka diyaarinayso waxaad samaynaysaa inaad isku darto labada ayaa the best chance. ya inaad isku darto labada ayaa markaa best chance. Okay, buugta waa laba nooc. codka ma la maqlayaa? Okay, buugta waa laba nooc. mid waa buug aad extended u ah. waxa markaa ugu caansan nin la dhaho Northern Note nin Suudaanis qoray iyo mid kale oo Al-Maghribi la dhaho isaga Suudaanis filay iyo Masaarif iyo ma garanayo. labada buugta extended-ka ugu caansan waliba waxa ugu sii laandheeraysan Northern Note-ka. Okay, oo addition-kii ugu dambeeyay yahay baan filayaa haddaanan qaldanayn 22-kii. Okay, Maghribigu 23-kii uu jiraan filayaa. Okay, marka kuwaas waa 2,000 oo page labaduba. waxaa jira haddaba mid isagu iska kooban oo ku dhow tirada ma saxayo laakiin 1,000 page waxa ilaa 900 oo page meelahaasa. marka mid walba dhibaatadiisu leeyahay, positive-kiisu leeyahay, negative-kiisu leeyahay. buugta dheer ee 2,000 page mushkiladoodu waxa weeyaan haddii aan mar saa u marto mar labaad iyo mar saddexaad way adkaanaysaa inaad ku celiso. mar labaad iyo mar saddexaad way adkaanaysaa inaad ku celiso. Okay, kan yara kooban isagoo wuxuu ku wanaagsan yahay markaa 2 iyo 3 jeer 4 jeer waad ku celin karaysaa. isaga ceebtu yeelana muxuu noqonaysaa inuu macluumaadkii waxyaabaha qaar uu ka tago ayaa suurtagala. marka aniga recommendation-kayga waxaan soo jeedinayaa markaa inuu qofku ka kooban akhristo oo ku kaabo markaa online MCQska. online MCQsku waa qasab. waxaa jira markaa buugaag baa jirta iyaguna oo kuwana buug laga dhigaa. buugtaasi ceebay leeyihiin waxa weeyaan iminka tusaale ahaan kale markaad soo qaadato kan oo kale wuxuu ku siinayaa su-aashii buu ku siinayaa. su-aasha markuu ku siiyo sharxu ku qorayaa. su-aasha aad garan weydo waxa weeyaa dadka subscribe gareeyay 100 imsaa gartay 100 imsaa garan waayay. su-aashan hore aad garan weydo ku leeyahay. waxaa jira motivation baa jira performance-ka xog maray darajo ku siinaya.
markaad ka shaqeyso 500 su'aalood inta saad keento ku leeyahay dadka average waad ka hooseysaa u leeyahay waad ka sareysaa u leeyahay motivation ayaa jiro ka daalmaysid laakiin buugga isla markaana waa update afartii biloodba wixii cusub su'aalaha lagu soo darayaa ma ogtahay waxa weeyaan automatically way ku soo darayaan laakiin buugta MCQ-yada waxa update-ka ma laha marka online subscription waa qasab inaad samaysato waa qasab marka ni recommendation-kay waa maxay qofku inuu diyaariyo inuu qabsado buugga kooban okay isla markaana uu ku daro 2 question bank marka pass medicine plus on examination okay kaas waayo ka gelaya Ireland ka ku gelaya isaga waxaan oran lahaa pass medicine plus bastes okay and marka exam-kani maxuu faa'iido leeyahay exam-kani maxaa uu faa'iido leeyahay exam-ku wuxuu faa'iido leeyahay wadano badan ayaa waxa u tixgeliyaan qofkaas kaleer gareeyay saddexda exam-ba inuu yahay speciality international yahay hadda internal medicine diyaarsay pediatry diyaarsana pediatrician inaad tahay oo saddexdaaba haddaad diyaariso adigoo wadankii joogaa ama muqdisho joog ama hargeysa joog ama meel kale joogee ama burco joogee saddexdaaba haddaad diyaariso waxa weeyaan waxaad diyaarin ama geli karaysaa subspeciality-ga tusaale ahaan oo kale Egyptian fellowship program haddaan saddexdaaba diyaariyo saddexda Ireland haddaan diyaariyo waxaan apply garayn karayaa waxa loo yaqaano cardiologist ama gastroenterologist ama respiratory sub ayaan dalban karayaa qodobka labaad ee uu leeyahay faa'iido kale uu leeyahay waxa weeyaan waa exam international oo worldwide ah oo meelo badan caalamka waxa weeyaan CV-ga xoojinaya oo marka haddaad MRTB kaliya ta sidato waxa laga yaabaa inaan waa exam moogta maaha training maaha exam weeyaan training maaha marka laakiin tiyoosaa tahay wadamo badan ayaa waxay u tixgeliyaan as postgraduate ayuu tixgeliyaan okay meelaha aadka looga ixtiraamo waxa ka mid ah waxa weeyaan meelaha aadka looga ixtiraamo waxa ka mid ah meesha loo yaqaano Singapore Australia iyo wadamada Carabta ee gacanka ku yaala okay qodobka labaad ee uu leeyahay faa'iido kale uu leeyahay ee waliba aan ka dhigi lahaa uu faa'iidada koowaad waxa weeyaan qofka wuxuu kor u qaadayaa waxa loo yaqaano skill-kiisa iyo aqoontiisa qofka hadduu saddexdaaba isku maro waxa uu noqonayaa qof systemiska internal medicine-ka ee kala duwan haddii uu kiis uga yimaado u fikrad wanaagsan ama approach fiican ka samayn karaya okay ka saddexaad waxa weeyaan qofku wuxuu samayn karayaa GMC registration wuxuu samayn karayaa GMC registration ayuu samayn karayaa hadduu sameeyo GMC registration oo liisanka qaato waxa uu samayn karayaa markaa inuu shaqo apply gareeyo oo markaa Ireland iyo waxa weeyaan UK-ba uu ka apply gareeyo oo markaa waxa weeye xagga ka shaqeeyo okay qofka goorma tahay inuu bilaabo qofka goortay tahay inuu bilaabo amaba exam-ka u saacidaya bilaabidiisa waxa weeyaan waxa loo yaqaano marka uu taagan yahay qofka anytime waa inaad bilowda okay laakiin waxa ugu wanaagsan qofka marka uu jaamacadda ku jiro inuu exam-ka kullu ka haysto marka wadamada uu ka mid yahay Suudaan iyo wadamada uu ka mid yahay Masar oo kale ardayga markuu jaamacadda ku jiro internal medicine dhiganayo ee su'aalaha laga qaadayo waxa yihiin kuwii MRCB-ga marka waxa laga qaadayaa wax levelkiisa ah
macaanku wuxuu ka soo macaanku already isagu wuxuu haystaaba MRCB-yadu haystaaba waxa weeye waa Royal College ku sitaa oo waxa weeye waa clear saddexdii examba dadna muxuu sameynayaa wuxuu imtixaan kaga qaadayaa waxa la dhaho pass medicine key su'aalaha levelkiisa ah ayuu ka qaadaya okay dadna ardaygu muxuu ku qasbay markaa wuxuu ku qasban yahay inuu markaa uu akhristo internal medicine markuu dhiganayo uu akhristo buugta MRCB-ga taas maxay u sahlaysaa waxay u sahlaysaa marka uu soo graduate gareeyo inuu markaa uu hore ka geli karayo examkii ila waa already exam ku soo galabe okay oo marka dhinac laga eegana qofkii motivation buu tahayo exams international uu galo marka dhinac laga eegana waa aqoontii oo markaas ku xidhan oo wuxuu examkaas ku wanaagsan yahay wuxuu ku tusayaa ama ku barayaa sida kiiska la isku xidho qof baa waxa uu leeyahay diabetic buu leeyahay diabeticgii dawooyinkaba ka ilaalinaya amaba diabetic buu leeyahay heart failure buu leeyahay waxa weeyaan dawooyinka heart failure-kee diabetic wax yeelaya kuwa diabetic wixii interaction buu sameynaya marka qofku wuxuu barayaa sidii markaa critical thinking loo sameyn lahaa oo markaa wax la isku xidhi lahaa okay oo aqoontaas sida uu buugaas u dhigan yahay waxa weeye wasiiro kooban oo qofkii iskugu xidhaysa waxa weeye medicine-kii qofkii iskugu xidhaysa medicine-kii marka labada jeer qofku faa'iidaya marka halka qofka looga dhigi lahaa Davidson iyo Kumar la qoray 2000 iyo waxa weeye 1 ama 2011 waxa wanaagsan inuu macalinku ama dhakhtarku marka uu ardaydiisa wax u dhigayo oo waxa weeye calaaqal oo examska kaga soo qaado su'aalaha levelkooda ah si ardaydu ugu dhiiradaan marka waqtiga ugu fiican oran lahaa qofku waa inuu sii bilaabo marka uu jaamacadda ku jiro in qofkii marka kuluu laga siiyo examku wuxuu yahay in qofkii marka aan lagu mashquulin kaliya examka jaamacadda ku baasayo waa in markaa la tusi karayaa ardaygii uu macaanku tusi karayaa bogoska examka wax ka baxsan okay oo jira exams noocaasa uu isku sii diyaariyo oo marka imika waxaan arkaa meelaha wax lagu akhristo waxaad arkaysaa wiils jaamacaddaas ku jira sanadkii saddexaad ayuu similigii sii diyaarinay hadda waxaad arkaysaa wiil akhriya balaabkii akhriya oo kule waxa weeyaan casharkii la dhigo anito marka la dhigo balaabkan ayaan la sii akhriyaa si aan markaan internshipka marayo oo ay akhrintu easy ay igu dhib yaraato okay marka inahaas ku soo koobaya wixii su'aalaad haysaan waad weydiin karaysaa weeyaan waa surgery-ga iyo OB-ga inta ugu maqaalada laakiin internal medicine soo noqnoqomayo laakiin mid baa jirta waxa jira recalls baa jira exams biri hore la galay waa UK-gan ka hadlaya examskaasi waa 2015 ilaa iyo markii ugu dambeeyay waa la helaa oo inta badan waxa laga helaa meesha loo yaqaano pass testiga waxa laga helaa halkee pass testiga ayaa marka laga helaya okay marka muxuu ku sheegayaa tusaale ahaan 100 su'aalood ku sheegayaa 100 su'aalood 2024 23 saddexda exambood ka shaqeysay 22 saddexda exambood ka shaqeysay 20 saddexda exambood ka shaqeysay markaad marayso tusaale ahaan oo kale GIT-ga waxaad arkaysaa celiac disease mar walba ku jira celiac disease mar walba ku jira marka micnaheedu waa maxay examka soo socon celiac disease ku jiraya deedna su'aalaha hore aad ka shaqeynaysaa exactly wax ka soo noqonaya ma jiraan waxaad helaysaa kuluu fiican baad helaysaa oo examku meelaha uu ku badan yahay ayaa markaa aad ka garanaysaa waana markaad la gelayo examiska weliba UK-ga waa qodobka ugu muhiimsan waa inaad ka shaqeyso examiska hore okay Ireland markaad u timaado isaga maan arag recalls maan arag haddii ay cid haysaa jirto ama aragtay way ii sheegi doontaa laakiin recalls uu leeyahay maan arag examkan waa exam cusub oo hadda la soo baranayo
waxaana dadka hadda baray seedkaa saddexaad ee basiska ee hore loo helayn ee ingiriiska ayaa waxa weeyaan dadka baray oo hadda waxaa laisku biyo shubtay oo dadku aad u galaan ka Ireland. Okay, another سؤال. دكتور السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله دكتور وبركاته. su-aasheedu waxa weeyaan qofku let's say internship ku jira manuu kala jebin shahaadadii isagoon helin examka geli kara maxaa tiri muu qala jibin internship ku jira shahaadadii weli muu helin shahaad دكتور meesha aad waa qasab soo maaha shahaadadu shahaad la'aan qofku ma geli karayo waayo waa professional loo baahan wala markaad aad certification ku samayso. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة. دكتور waad mahadsan tihiin dadkiina ka soo shaqeeyay arrintan inaad nala wadaagtaan sharxaadan aniga shakhsiyan aad bay muhiim iigu ahayd xogta tan waana ka soo daahay oo waqtigoo sii dhammaanaya baan u soo biiray marka su-aasha laba su-aalood baan qabaa mid waxa weeye fideogan oo recorder ah ama wax li aan dib ugu ceshado ma heli karaa tan kale waxa weeye meetingka wax soo noqnoqdo miyaa oo waqtiyaal kale aad samaynaysaan mise waa wax caawa keliya ahaayo saa ku dhammaaday oo mahadsanta doctor waxaan filayaa inaan jirin sabab kaloo aynu mar labaad u wada nimaadno waayo su-aaligu muhiimsanaa ama la isweydiinayo waan ka jawaabay hadda aad u baahan tihiin amaba waxyaabo dee caddeyn kala ama meelaha fahmin qofkii uu ila soo xiriiri karaya si personaliya recorderka xaggee laga helayaa doctor okay insha allah waxaa soo gelin youtube waa mahadsantahay doctor meel aan kaala soo xiriiro sidoo kale su-aalo special aan qabo waa jira inaan ku weydiiyo waan rabay okay insha allah youtube-ka soo gelinaya waxa weeye xaggaasaad iyo facebook insha allah السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام دكتورة. السلام عليكم. waxaan doctor waxaan weydiin lahaa su'aal aan isleeyahay دكتور طارق دكتور طارق يبدأ فيديو سعودي. اوكي اما اوكي صعب وصعب دكتورة ما مساعدتيس كسنتر كانوا نجري مرتين كايا اوكي دكتور جامع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام دكتورة. دكتور سؤال waxaan ku weydiin lahaa aan jeclahay inaad ka jawaabtay oo aan ka yara mashquulay markaa ka jawaabaysay. dib male. doctor muxuu ahaa xagga materialska marka la diyaarinayo airline-ka wax specific ah oo uu kaga yara duwan yahay oo ma jira si gaar ah marka UK-ga la joogo oo aad airline-ka markaad diyaarinaysa ay tahay inaad si gaara focuska u saartid doctore waxaad jirtaa imika UK markaad ka hadlaysid isaga horta wax imagina haba yaraatee baartoka ku admaysid okay laakiin baarti airline-ka baartiwankiisa waxaa jiraya su'aalo ama sawiro laakiin aad keliya aad ku fahmi karaysid xataa haddaan sawirka aanad garanayn scenaariyada yani waa imageyo common ah ayaa la isweydiinayaa waxaa kaloo jirta airline xagga diyaarinta meelaha qaar baa awood badan aad sii saarayn markaad joogto UK tusaalahaan markaad joogto biostatic oo kale 5 su'aalood ugu yaraan uu kula imanayaa oo basic science waa 5 su'aalood okay kana wax laga yaabaa in basic science 5 su'aalood uu ka yahay deedna xagga culays uu kala yaraanaya psychiatry-ga awood badan sii maysid ophthalmology-ga awood badan sii maysid okay palliative medicine-ka awood badan sii maysid laakiin UK psychiatry-ga waad ku qasbantahay inaad waxa weeyaan inta buuga ku taala si wanaagsan aad u sugtid
ophthalmology-ga isaga waa 5 su'aalood 5taas su'aalood kaama go'aan palliative-ku waa 5 su'aalood marka xagga pressure-ka waxa jira waxyaabo badan oo aynu hore u sheegnay oo uu ka UK dheeri ku yahay waa sababta aan u leeyahay waa uu ka diyaaradiisu way ka dheertaa ka adag tahay marka loo eego airline okay marka mar walba airline-ku waa less yani waa uu ka yar yahay dhinac walba okay marka laakiin xagga kale sooska doctore buugtu waa isku mid online-ka ka wada shaqeynaysa waa isku mid waxa laga yaabaa haddii aad iska dayso tusaale ahaan oo kale secretary-ga airline-ka diyaarinayso oo kaba ag wareeginba pressure badan male laakiin UK macquul maaha iskama dayn karaysid ya biostatic haddaad iska dayso airline UK-ga waa yara qariib waa yara waxa weeyaan waa laga wanaagsay marka xagga sooska waa isku mid laakiin meelaha qaar ayaan airline-ka aanad awood badan siinayn laakiin inta kale waa isku mid online-ka buugta meel walba isku mid دكتورة كالرا only MRCP يا قري دكتورة ما تسند maxaanti doctore the only MRCP يا قري أما سين كو قرن كرنا عدة قرطيو أما مالك اللي جهل كره sawirkiisa ay soo diri doonaa أوكي sawirkiisa ay soo diri doonaa okay another question السلام عليكم توري هل سؤال أو حاجرتو حاجران تليجرامك maxaa arka masaari oo isla diyaarinayso live stream soo gelinayaan hal qof ka mid oo gatay maxaa la dhahaa bas medicine oo kale oo iskala wada shaqeynayo marka qofka aanan gadanin oo saas oo kale preparation ku galo maxaa la dhihi karaa chanceska oo ku baasi karo wallahi doctor waxa ku xiran tahay waxa loo yaqaano qofka beeskiisa oo marka lagala shaqeynayo su'aalihii motivation lagu siinayo laga rabo casharkii waxa weeyaan iyo markaad u iswado way kala duwan tahay yani adiga motivationkaaga du fiican yahay oo aad waxa tahay aan u baahnayn motivation oo aan u baahnayn in cid ku daba socoto u beeskaagu fiican yahay oo waa sahlsan karaysaa laakiin haddii kale waxaa iska rumaysan in lagu siiyo bush lagu yar siiyo buugga la dhaho the only MRCB doctorkii kale weydiiyey waxaa qoray ninka la dhaho hani abulqaasim oo markaan masri yahan filaya isaguna buugta inta badan caalamka la akhristo waxa weeye kuwa carabta ugu caansan qaar ay nimanka ingiriisku qoran way jiraan laakiin kuwaasaa ka caansan marka doctore haddaad beeska u fiican yahay okay haddii kale waxa weeyaan waa kooraska pressure lagu yar saaro lagala shaqeeyo su'aalaho habeen walba 10 aad qaadato waa motivation moogtaa kama ma daalaysid marka inaad iska qaadataa iska fiican السلام عليكم calaykum salaam raxma waxaan rabaa inaan ogaado maxaa la dhahaa bas medicineka source materialka su-aal la xiriira bas medicineka iyo bas testiga labadaas haddaa isticmaalo airlineka marka aan barbaargareynayo ma u dhigantaa booska maxaa la dhahaa on examination bas medicine iyo bas testi iyo bas testing doctor marka examska laga hadlayo waa inaad mid walba aad yani say isku qaadanayaan in marka UK laga hadlayo part 1kiisa waxa qasab mandatory bas medicine oo examka waxaan moodaabaa in sidoo su'aalu dhigan yihiin iyo siday adeegooda iyo wax walba bas medicine isleeyihiin UK part 2 marka diyaarinayso waxa isaga qasaba bas test okay Ireland marka diyaarinayso waxa mandatory waxa loo yaqaano on examination okay
oo ah su'aalaha waxaad moodaa inay isqaadanaya isku dhow yihiin waxaan garanayaa examkii sanadka gudihiisa waxaa jiray part 2gii in su'aal exactly soo noqotay oo ku jirtay on examination okay marka on examination Ireland waa mandatory okay marka on examination waxa ku weydiina on examination waa set degree waxa ii soo baxday BMG on exam maxay BMG on exam BMD BMG on exam BMG ma doctor waynu ku soo baxo MRCB okay tamam waa fasireena MRCGB wax soo jara saasa waqa MRCGB saasa filaya ma hubo waan hubi doonaa insha Allah okay okay hal su'aal doctor oo amasan tahay bas medicine-ka offline isticmaali karaa oo isticmaal kartaa ha okay last question bas medicine-ka ma ka dhamaado MRCB bas part 1 oo MRCB iyo bas medicine marka ka dhamaado kadib revision ahaan on examination dib u galan karaa sama waha waxa weeye cid ku diidata ma jirto waa caadi amasan doctor adaa wada okay another question marka waxaan filayaa wax su'aalo ma jirto oo soo xidhaynaa wad ma city waqtiga qaaliga aad siiseen السلام عليكم